dii ay tiraa hooyada iyo aabahay baa macnaha naagtan baa looga dambeynaya way tagaysaa wadaday maraysaa hooyada iyo aabahay guriga iska leh anigana ayaga ay leh horta haduu dhaho ha ka qaybida macnaha ha tagin macnaha waxaan maleeyaa waa sharci oo macnaha ma tagi karto laakiin ma wacna in uu ku adkayo hadii macnaha baahiyo aysan jirin adigoo ku bilaabay magacaaga soo dhow xayawaan dhawa magacaaga Maxamed Cabdilaahi Bilaah Maxamed Cabdilaahi oo barnaamijka su'aalaha ayaanu la socon dadka weydiinaa sidoo aragtay horta barnaamijku muxuu ka kooban yahay markaa walba su'aalo ka weydiinaya maadiya kaftan tahay aan soo dhawaado su'aalaha aragtida barnaamijka horta ka war barnaamijka horta ii faahfaahin marka hore waxa laga hadlay adiga marka su'aasha barnaamijkan ku weydiin waxa ku dhahaysaa mudooyinka dambeeyay baraha bulshada dood baahaysatay oo Universal TV laga qabtay gabadh baa waxay ka dhawaajisay amarka ninkayga waxaan uga amar qaadanaya ama uga tanaasulaya ka qaybgalka aaska aabahay sidoo aragtaa marka bismillaah taas haddaan ka qayb qaato marka u horeysa gabadhan iyo ninka yaa mas'uula ninka mas'uula gabadha waxa keenay saddex baa keenay gurigay mas'uul ka tahay macnaha caruurta iyo ubadka bay mas'uul ka tahay sidee guriga iyo aniga mas'uuliga maaha marka la sii kala guro macnaha naagtu waxbay mudan tahay ninkuna waxbay mudan yahay ninku isaga guriga mas'uulka ah hooyadiisa iyo aabihiisna ugama mas'uul aha in naagtiisa looga weydiinayo haddii ay tiraa hooyada iyo aabahay baa macnaha naagtan baa looga dambeynaya way tagaysaa wadaday maraysaa hooyada iyo aabahay guriga iska leh anigana ayaga ay leh waan ku dhameeyay haddii macnaha marka midaas ku saxan yahay ninku inuu dhaho sida aabaha kama qaygalis ma ninku hadduu yiraaho guriga kama bixi kartid isaga ku saxan waxay gama siin kartid albaabka cid kama fur kartid isaga naagta ka mas'uul wahay kawran ila waa isku nafsade haddii iyaduna gurigana waa loo sameeyay oo wax wada jidba wax lagu yahay markiisa haddii ku tiraahdo adiguna halka ma heli kartid kawran aniga guriga ayada keensaday oo ka mas'uula haddaan idhaho baxna way baxaysaa haddaan idhaho joogna way joogaysaa marka haddii joogaysa waa inaad wixii aad u rabto ay ka joogto waxaan rabo inay tiraa albaabka haddaan idhaho cid ha ka fur kama fur karto waaye si hooyada iyo aabahay albaabka waa laga furaya iyaga cidna weydiisan maayaan iyaga gelaya ayaga anigana ayaga ay albaabka gurigana ayaga waa sida waan ku soo dhaweynay wixii fikradda qabana aad iyo aad baan uga soo horjeednaa in naagtu tiraaho hooyada iyo aabahay guriga ka mas'uul noqonay aad baan uga soo horjeednaa waana cambaaraynaa adigoo ku bilaabay magacaaga مولود محمد مولود soo dhaw waan dhawaysaa waxa jirta su'aalo kala duwan oo weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada sidoo aragtay su'aalaha caadi weydiin way su'aashan ku weydiin waxa ku dhacaysa su'aalihiin iska qarsan goorma kugu dambeysay inaad maqashid ama si aad aragtid hooyada oo aabbe kula wax jecel ma arag mana maqal taas mana arag maxaa dhacay aabbaha iyo hooyada iyagoo isla jooga ma arag ma arag way adigu seentay baad ku tiraahdaa gabdhaha wax jecel kun iyo kow jeer magacaaga soo dhow ana ku hayn waa dhawaad magacaygu waa Maxamed Abakar Xuseen Maxamed Abakar soo dhow baan ku leeyahay barnaamijka su'aalaha waa dhawaad waa ku dhawaad su'aashan galabta ku weydiinaa waxay ku leedahay mudooyinka u dambeeyay baraha bulshada waxaa hadalayn ka dhalisay dood Universal TV laga qabtay oo ahayd gabar tiri ninkaygu haddii uu dhaho taasida aabaha ama family aabaha kama qaybgalis oo naxashka saaran yahay waxaan xaq u leeyahay inaan maqlo amarkiisa doodana ninna uu ku taageeray balka waraado oo matii ilahayd baa hooyada gurigan aan hooyadii ma iman karto waa dood isla doodii ma isla yadoo baa taasida aabaha ma tii karto anigu naagta waxaan ku maseeyaba garan maayo mana aaminsan waxa ay sheegaysaa qof aan muslimka iyo gaalada u dhaxayso ma arkay laakiin qof dadku waxa weeye haddii aynu nahay Soomaali ama islaam baa aynu nahay dhaqanka ma aynu lahayn waa waxay uu meel kala timiyo reer galbeedka kala timiyo marka mana taageersanin mana maqli karnaba arinta anigu fikirkaas aan ka qaba ninka taageeray ka waran ninka taageeray waxa weeye niyo adduunku hadeerto iska jaawareer hadeer haddii gaala macatab tahay timaado dadka qaar ba iska dabayacaya awalan muslimku ogid nin un jaawareerka un kamida un baan u arkay wax raayo nin raayi lama hayn raayigiisu ma fiicnay
laakiin arrintaasi arrin diiniyan iyo dhaqan midna aynu shaqo ku leenahay ma ahayn arrin xataa dadka la weydiin karo lagu sii dhex wadi kara maaha kuwa dooda qabtay ka hor waxaan dood ka qabaa kuwa waxaa dooda ka qabtay ka hor barnaamijka noocaas anuu aan dood ka qabo may kuwa tv-ga kuwan tv-ga dooda qabtay laftirkoodu way khaldan yihiin waa sax arrin bulshada lagu dhex wado arrintaasi ma aha dadku waxa weeye naagta aad aragtay ninkaa taageeray dee dad badanoo bilaa caqli ah baa raacaya sumaadan fahmin marka arrintaan waxaan odhan lahaa qoladan warbaahimaha iyo waxaan baraha bulshada ay sheegayaanna iska joojiyeen iyadana de sidii bayba albaabkeedu inooga xidhan yahay markii horeba laysaga xidhay waa naaran wey waa falaysa mina naagtaas adigu falaysa mina umanu dayanagama mid aha de wanka aad baa mahadsantahay ku bilaabaya magacaaga soo dhow waan dhowahay walaal magacay waxaa weeye anas cabdiraxmaan axmed anasoo waxaa jira su'aalo kala duwan oo weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada sidee u aragtaa horta barnaamijka su'aalaha walaal si wacan buu arkaa waana soo dhoweynayaa nuuriya media soma soo dhoweynaya intaasoo jeer horena waan daawada su-aashaan galabta ku weydiin waxaa ku dhahaysaa soshiyaalka waa isticmaashaa muddooyinka u dambeeyay hadalhayn badan waxaa ka dhalisay gabar tiri oo universal dood looga qabtay oo tidhi amar qaadashada ninkayga waxaan uga tanaasulayaa ka qaybgalka aaska aabbahay ka warran sidee u aragtaa wallaahi horta niyahow waa si wanaagsan kowdhe waxna waa fikrado waxna waa diin moogta diintu mar kasta waxay macnaha deena farasaa isku tanaasul ninka iyo xaaskiisa marka niyahow horta ninkuna inuu gabadha ku adkayo maaha oo macnaha de waxyaalaha dee daruuriga ah oo macnaha baahida joogtada ah kowdhe laakiin in ay gabadhu ninkeeda maqasho wax fiican oo kaa gabdhahan taasoo kale waalidka balka war haddii uu dhaho kama qaybgeli sidaas ma bannaanta sax waalidka sax haddii uu ku dhaho macnaha tacsida waalidka kama qaybgelis sax diintu maxay ka qabtaa ama aragtidaada uniyo horta aragti ahaantayda horta ninku isagaa macnaha reerka de ka mas-uula xaqna de macnaha de uu ka saaran yahay reerkiisa ilaa de gabadhiisa ilaa carruurta iyo wax kasta oo ma garanaysaa horta hadduu dhaho ha ka qayb de macnaha de ha tegin macnaha waxaan u malaya waa sharci oo macnaha ma tegi karto laakiin de ma wacna in uu ku adkayo haddii macnaha de baahiyo aysan jirin macnaha de diidaya aragtideedu taa walaalaad baa mahadsantahay